wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalk ee Soomaaliya Dr. Cali Xaaji Aadan ayaa xarunta qaramada midoobay ee magaalada Tanjineefa waxa uu ka qayb galay shirweynaha madasha caafimaadka adduunka. wasiirka oo warbaahinta qaranka wareysi gaar ah ku siiyay magaalada Jineefa ayaa waxa uu ka warbixiyay waxyaabihii ugu waaweynaa ee sanadkan looga hadlay shirweynaha caafimaadka adduunka. in iskaashi laga wada yeesho kuwa aan awoodin inay ka hortagaan xataa laga saacido si uu hortag lahaayeen ama xakameyn laga saacido adduunyada diyaar u tahay arintaas in la iska kaashado xoogga waa la saaray caafimaadka global health waxa loo yaqaan caafimaadka adduunka in la iska kaashado international health regulations in la iska kaashado istaraatiijiyad looga hortagayo cudurrada faafa in la yeesho oo la wada saxiixo hooyada iyo maaragtay dhalaanka iyo adolescentska caafimaadkooda in commitment dawladaha dhan ay galaan in maxay ahayd talaalka soo saaristiisa iyo baahintiisaba in la xoojiyo waxyaabo badan caafimaadka maaragtay xarumaha caafimaadka solarizationkooda iyo waxa loo yaqaano maaragtay tamarta cagaaran in maaragtay green energy in oo la isticmaalo xarumaha caafimaadka in oo loo isticmaalo in la xoojiyo waxa kamid ah muwaadiniinta laga hadlay ay kamid ahayd marka aad u tir badan muwaadiniinta laga wada hadlay laakiin kulan dacadyada oo isbarbar socdayna way badnaayeen ama dawladaha ay yeelanayeen ama ururada iyo dawladaha ay yeelanayeen aad ay u badneed marka wax badan looga hadlay meesha. dhanka kale wasiir Dr. Cali Xaaji Aadan waxa uu sheegay in sanadkan ay Soomaaliya door weyn ku lahayd shirweynaha caafimaadka adduunka oo ay ka soo qayb galeen in ka badan 150 dawladood. annaga doorkeena wuxuu ahaa in ururo iyo deeq-bixiyaal oo wada shaqeyn ay naga dhaxayso ama wada shaqeyn aan ka rabno inaan la kulanno oo waxyaabaha baahideena aan kala hadalnana waan ugu faa'iideysanaynay dawlado aan rabno soo kale inaan la kulanno oo aan waxna la qabtaan aan rabnayna inaan la kulanno qorshaheena oo kamid ah oo aan la kulannay sidoo kale in maxay ahayd meesha waxaan ka jeedinay annagoo 22 dal oo ku midaysan imro mandaqada Eastern Mediterranean region 22 dal oo ku midaysan oo Soomaaliya kamid tahay annagoo wakiil ka ah waxaan meesha ka jeedinay resolution ama qaraar oo in maaragtay dawladda adduunka oo in la ansixiyo isla qaata aan rajaynayno 2024 qaraarkaas ayaan meesha ka jeedinay oo lagu xoojinayo commitment caafimaadka oo maaragtay caruurta iyo adolescentiga iyo hooyada ku saabsan qaraarkaasna meesha waa ka jeedinay oo campaign oo u galnay sidii taageero aan ugu heli lahayn qaraarkaas oo Soomaaliya meelaha maaragtay dawladaha dhibka ugu badan caafimaadka hooyada iyo dhalaanka dhib badan oo ka jiro dhimashadoodana ay badan tahay kamid tahay marka commitmentigaas hadii la galo oo la isla qaatana wax badan bay noo taraysaa marka qaraarkaasna meesha waa ka jeedinay marka waxa aan maaragtay sidoo kale aan yeelanay kulan dhinaceedyo fara badan ayaan la yeelanay deeq-bixiyaal iyo dawlado saaxiibo ah muhiim noo ah aan la yeelanay wax badan oo guul ah ayaa halkaas aan kala kulannay. ugu dambeyntii wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalk ee Soomaaliya waxa uu shacab weynaha Soomaaliyeed ugu bishaareeyay in dhowaan xariga laga jaray doono mashruucyo waaweyn oo dhanka caafimaadka ah oo ugu horeeyo bangiga kaydka dhiigga. bangiga dhiigga dhismihiisa waa soo gabagaboobay hadda qalabayntiisa socoto mar dhow insha Allah taala wuu shaqo bilaabaya xarigan oo ka jarayna haddii Ilaahay yiraahdo waxa kaloo dhismihiisa uu noo soo gabagaboobay warehouse-kii daawada ama bakhaarkii kaydkii daawada ayaa dhismihiisa asan u socday ayaa hadda soo gabagaboobay asigana xarigan ka jarayna oo shaqo bilaabay asigana waxa soo kale aan la dhisay oo la hirgeliyay xarumo public health emergency operation centers la yiraahdo caasimadana mid laga dhisay oo la furay galmudug iyo maaragtay Jubbaland laga furay Hirshabelle iyo Koonfur Galbeedna maaragtay la dhagax dhigay xarumahaasna ayadana waa qaarkoodna waa shaqeeyaan qaarkoodna waa la dhagax dhigay way bilaaban doonaan dhismahooda marka waxyaabo badan oo wasaaradda ay waday ayuu kamid yahay bangiga dhiigga oo dhawaan soo gabagaboobi doona marka dhismihiisa waa soo gabagaboobay qalabayntiisa socoto mar dhow waa la furayaa haddii Ilaahay yiraahdo.
cabdiqani cali dalmar warbaahinta qaranka magaalada Geneva wadanka Switzerland.